أريو أم بدنين كأورن دونا كلمة سكو صابسن الفوز في الحياة فوز success قول وأري عصر قندم بآد لوغو عليو لقيه نونين بدن مغلان أما دقالها لغا ورميا أما عيارها لغا ورميا أما وحكالا لغا عدبا قولي ستيبا بدن مغشان سؤاشا رباينا نسويدينا وحويان قول موقفك بني آدم كالله وران كراوو قوليستي قوش السمحة لغو قياسة محوية هاي مقياس كدبطة فوزك أمس يقول سكسسك محا لغو قيمية هدينو ندهنا نولشا أيوكو قوليستي قفكو نولشو وإنتي ما إنتان سنوات كان دونك اللي تشوغيا مسوا آخره marka lagu daro nolosha qofku noolaanayo dhan ma lagu qiyaasi karaa guusha maalka iyo mansabka iyo magaca iyo maamuuska uu qofku helo kelimada fawz fi lugha waxay yiraahdaan waa najaatun min marhub wa tahsilun li marghub bay yiraahdeen waa waxaad ka cabsanayso ka nabad gashid iyo waxaad raadacaynayso oo aad heshid أو الظفر بالخير مع حصول السلامة بين هذا وأين وحشه وحي خير كي وانا قاعد رادين السي نبتنا كنا بدقشيت إذن قفك بني آدم كاهي قول استربضا بوليا ما أهداف تربضا مركز تو هدف حقيقي وحلا إله هو قوليستي أرضيقا هدف كيس كواد وحويان إنه سكول كدمايا ما جامعة دمايا معناته شهادة الساقاته حلي وان قوليستي امتحان كي وان دمايا وان قوليستي إنك السياسي وحلا غيابه هدف كيسوني هاي بوس سياسي إنه قاعده معناته كرسي قفوله وحلا رنا يحسب قاسي أما أورور كاسي هو قوليستي لكن dhabahaan goormaynu oran karnaaba qofka bini aadamkii nolosha ku guuleystay waxaana dhamo ahdaaf marxaliya waxay ku gabagaboobaysaa inuu raahno noloshii waad guuleysatay iyo noloshii waad khasaartay wax ka dhaxeeya ma jiraan simple goals kan marka la isku wada daro hadaf baad nolosha ka leedahay nolosha hadafkeeda haddaad asiibto oo meesha aad u socotay aad gaadhana waad guuleysatay haddii kalena lama guuleysanin walidalik su-aasha waxay noqon kartaa oo hadafka nolosha ka leenay markaa muxuu yahay ma inaynu cunno cabnaaba ma in shahaadad la qaataaba ma in lacag la helaaba ma in magac iyo maamuus la helaaba life purpose-kaagu muxuu yahay hadafka aad leedahay goolka aad nolosha maxaad u noosha inaad maxay xaqiijiso qofka bini aadamku inuu hadaf leeyahay meel uu socdo uu rabo inuu gaadho qof noole inuu wax cunaa ma jiro noolo waa wax cuno soo toosoo kac dabeetana 60 sano markaad gaadho xabaasha lagu geeyo that's not a life nolol ma hataasi qiimo ma samaynayso waxaynu isweydiinaynaa markaa hadafkeenu nolosha ka leenahay waa maxay si markaynu ku guuleysanana inuu dhaano hebel noloshiibuu ku guuleystay marka la waayana aan dhaana hebel noloshiiba ku khasaaray ila walaba midun haddaad nolosha hadaf ka leedahay meel aad u socota hadday jirto meeshii markaad gaadhana waxaan odhanaynaa waa guuleystay markaad gaadhi weydana waxaa la odhanayaa wuu guul daraystay muu guuleysan success ma gaadhin ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu sheegay goorta la guuleystaa goortay tay wuxuu kaloo inoo sheegay nolosha tan iyo hadafka laga leeyahay wuxuu yahay waxa la inoo sheegay dadka inta guuleysatay iyo inta khasaartay quraanka intaas oo aayadood ba ka soo arooray oo ka waramaya al-faa'izuun intaas oo aayadood ba ka waramaya al-khaasiruun wana macnaha dhabta uu noloshu leeyahay marka labadaasi kala garato rabbi subhanahu wa ta'ala marka
nolosha iyo hadafkeeda iyo waxoo dhan iyo guusheedaba miqyaas baa loo yeelay. يعني noloshu haddaanu jirin thermometer ama barometer ama wax lagu qiyaaso haddaanad haysanin, yani guriga dherarkiisa waa imisa, waa inaynu haynaa waxaynu ku qiyaasno. markaynu haysano miqyaas la saaro ayaynu isla garanaynaa dherarkiisu intuu yahay. laakiin haddii nin waliba isha ku eego wax saxa soo bixi mayso. marka wax la qiimeynayo wuxuu doonaba ha ahaadee waa inuu jiraa waxaad haysato oo barometers aad leedahay. markaad kaatigarayso waxaas waa la qiyaasi karaya, waa la gaari karaa inuu jiro. rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay kullu nafsin dhaa'iqatu lmowt وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. سورة آل عمران بقول سيدتن يشن بقول سيدتن يلح لبدا يدود يسكحي ربي وحليه سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت wax kasta oo nool geeru dhadhaminaya muntaha alxayaat addunya weeyaan baa la leeyahay. inta doonta joog way dhamaanaysaa. wa inma tuwaffawna ujurakum waxa laydin wafeynaya laydin dhamaystiraya. adduunka waa laga yaabaa wax yar yar waa min camalika inaad dhadhamiso, sawaan kanat positive iyo negative kay doonaysa ha noqoto. waxyaabihii aad shaqaysay wax ka mid ah hadday qadhaadhaydna waa laga yaabaa nolosha wax ka mid ah inaad ka soo dhadhamisay, hadday macaanaydna waa laga yaabaa nolosha wax ka mid ah inay soo dhadhamisay. laakiin waxaa la yidhi taas iyadu way dhammaanaysaa, absolutely waa dhammaynaysaa. laakiin waxaa lagu dhammaystirayaa baa la yidhi camalkoo dhan wixii aad qabatoo dhan abaalmarkiisa waxaad wada helaysaa. inamaa tuwafaw wafaa baa lagu isticmaalay. waxaa laydiin oofinaya laydiin dhammaystiraya ujuurakum yowma alqiyaama baa ilaahay yidhi maalinta qiyaame. alxayaat lukhraa xayaat lukhraa aakhire markaynu gaadhno nin walba shahaadadiisa la siinaya. qalin jabintaadii adduunka intaad joogtay imtixaan baad saxaysay, papers baa lagu dhiibay. waxa laaliya waxaad adduunka ku haysoo dhan sideku doona ha ahaado. haddaad madax ahayd waraaqaad buuxinaysay, haddaad lacag haysatay waraaqaad buuxinaysay, haddaad faqiir ahayd waraaqaad nolosha dhammaanteed imtixaan bay ahayd aad ku jirtay. imtixaankaagaasi resultkiisii jawaabtiisii waxaad helaysaa baa lagu yidhi maalintaad qiyaamahaysa soo taagto ayaa lagu dhiibayaa jawaabtii imtixaanka. saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu yidhi faman zuxzixa cani nnaari waudkhila aljannata faqad faaz. ninka qudha guulaysta waa kanuma rabbi yidhi naar ninkii laga dhufto zuxzix, ninka naarta haf laga soo siiya laga ilaaliyo laga durkiyo oo waudkhila aljanna janno la geeyo, kaas baa ilaahay leeyahy faqad faaz. miqyaas ulfaws markaa waa kan. goormuu qofku guulaystay? wuxuu guulaystay markuu naar ka badbaado ee janno galo ayaa rabbi tilmaamaya. ama adduunka intaad joogteen waxaad guula ku sheegayseen oo dhami wama alxayaatu dunya ilaa mataacu lguruur baa ilaahay ku xigsiiyey. nolosha adduunyo waxay ahayd bidhbidhka lagu kadsoomo. nolosha adduunyo gebigeeduba bidhbidh lagu kadsoomo bay ahayd baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala. aayadda ku xigtaa ilaahay markaa wuxuu yidhi waan idin imtixaamaya. xoolaha nafta ayaan idinku imtixaamaya. gaaladaa laydinku imtixaamayayo ahlu kitaabka iyo waxaa la mid a war badan iyo mushrikiintaba adan kaiiran baa ka maqli doontaan baa ilaahay yidhi. wax badan oo idin dhiba adyad badan baa nimankaa ka maqli doontaan baa ilaahay yidhi. ee wain tasbiruu watataquu sabirkii taqwada loo baahnaa haddaad la timaadaan waa casmi lumuur baa lagu tilmaamay. idan ayuha alikhwa alxayaat addunya tantahi bilmowt. nolosha adduun wuu dhammaanaysaa, geeraanay ku dhammaanaysaa. maqza alxayaa markaa waxa weeyaan huwa alibtilaa. tanaynu ku nool nahay purposeka danta laga leeyay waa in lagu itixaamo. tabaaraka aladii biyadihi lmulk wahuwa calaa kulli shayin qadiir
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم بإلهي أيكم أحسن عملا أدونك وابتلاء إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا أدونك وحلوها يوردم وامتحان إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أدونك وامتحان وحانتكم امتحان أنت وحاد قبرس أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أيحسب الإنسان أن يترك سدى وحانا لقوه اتحاميا امتحانك الرسمي قاهي وبالعبادة تكليف واقع وابتلاء لكن هو ابتلاء بالعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ابتلاء سيادك وجهك دون يهقوي ماضو قرآنك إلهي لبن النبي بك ورمى لبدا النبي اسكو صفة لغو شاقة لكن قرآنك لبدا النبي وحي نوغا شاقة ووحك لدرقصا نبي ونبي سليمان نبي سليمان قرآنك إيا قصص كيسا إمادا ما مغاشين إيادو لغا ورمى إنو بقرها وأفف بدن قرنيي وقرآن شدو وحيكو هاد ليسا قرنيي ومنطق وطير شمبروه وحيكو هاد لان قرنيي وشنك الله سخيري كوا بدا قوسي كوا مالك لو بودبا بلا كوا لا أقون تما أنت الدنيا دا تعالك سريسة وإن عرش بلقيس لغا قادو صبا وفلسطين لقيو والبرقسية لغو قيو تكنولوجيا الدنيا دا ما أنت ما أوده تكنولوجيا الدنيا دا ما أنت وحا أوده عد إن البرقسية لغو قيو هذا الكاغا ملي سكندز أي الدنيا دا طرف كده كله لكن سماعة دا يهرت على أن تطوره ويانا أساس سيجنال أو إلكترون لا طوره حاجة كلا عندي كمان ريسيف قرين كرتو تكنولوجيا أول ما هينو لكن نبي الله سليمان الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيكها محيري قبل أن يرتد إليك طرفك عرش بقى وكلا طوره حاجة كلام بك صار داعي أنت أنا البرقس جاكو تكنولوجيا أنت اللي جوا هيستي بل إلهي وحكبري ملكا لا ينبغي أحدا من بعدي بقرطويان أنا قد ضبضي عندما والله يتحامل امتحانك يهرب وحو أركي إن أنا آدو قولي سنبو استريسيين ورن كرنا هدو يريقو صح نغضو هو مركو لها إني أحببت حب الخير عندك فرده يوحي أبهدي سين ووقتي عبادين يرنا في الصيوك لو يريبها هذا قبل ودب الجورع مركز إلهي وحكد البضي امتحان كان كوين إلا ماريو وأمرك لا ينبغي أحدا من بعدي نبي سليمان كوحا صورنا أكتيس الله دقي وقوليستي إلهي محكو سفاي نعم العبد وورث سليمان وورث داوود سليمان من يده وورث سليمان داوود ووهبنا داوود سليمان نعم العبد إنه أواب إلهي نبي داوود سليمان ما نصير نبي إلهي دبت أنا محل إلهي نعم العبد هي إلهي كنت المامة أواب إنوها هي نعم العبد أوكي نرشي إلا ابتحامي وكو قوليستي وحلا سي درجة نعم العبد قرآنك وحكا ورمي يا نبي كلا نبي كلا وح كلو إلهي قرآنك كغشي جاي ما شرته إلهي إنه بكيو شيفي مو يعني نبي الله أيوب قرآنك مالك استعاد كو أركته بكاء ما لقى ورمي سنة النبي محمدنا حادثة علماء السؤال وريان واحد المام يسا طبعا إيه سدات سندود إنه بكيو شيفي أو حنوسانية ولا نعي يسير إلهي محكول سفي إنا وجدناه صابرا حكو حقا نعم العبد إنه أواب سليمان وقول استبال إلى نبي سليمان نبي أيوب وقول استي لبدو ده امتحانه والله امتحانه كلا نوعه مد بيج كسياسة ده يملك جيا ما ملك جيا حولها اللودي بي كاس على وقت حامة ده بتنا وضدي تال لقى الربيب مريء
dhan inuu islaamiyo dad dhan inuu diinta soo wixii laga rabay buu fuliyay waxaana lagu sifeeyay ni'mal abdu innahu awwab ayub isaga inta quraanku inooga sheegay waa la itixaamay lafihiisa baa lagu itixaamo isagu xanuun iyo dhib baa ku dhacay waa jiifsaday waa la wada nacay waa laga tagay halkaasuu jiifay inni masariya shaytaanu bil halkaasuu ilaahay bariyay ilaahay wuxuu ku sifeeyay isagana inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab idan hadafka kama dambaystii waxa weeyaan ma xaqiijisay ilaahay adoonnimadiisii ha huwa imkaaniyaadka ilaahay ku siiyay ku xidhanta imtixaanku dadka barba u haysta in khilaafo la dhiso inaynu ku imtixaamno kuma imtixaamin ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay la yukallifu Allahu nafsan illa ma aataaha balayhi nafna ilaahay ma imtixaamo wuxuu siiyay mooyaan inta lagu dhiibay adiga nolosha lagaaga soo beegay beejka ma dooratid ilaahay baa doora inaad madax noqon iyo inaad miskiin noqon inaad maal qabeen noqon iyo inaad faqiir noqon adigu beejka dooran maysid laakiin adigu waxaad dooranaysaa saad u maamulaysaa beejkaaga jawaabaha imtixaanka marka lagu dhiibo maxaad ku qoraysaa waxaad ku qoraysaa baad ama ku faa'iisaysaa ama ku dhacaysaa labada nabi quraanku uu tilmaamay labadaba ilaahay wuxuu ku sifeeyay ni'mal abdu innahu awwab labaduba waa guuleysteen midi wuxuu ku guuleystay inuu bukaankiisu ku sabro ilaahay taacad ugu ahaado saa quraanku inoo tilmaamay midina wuxuu ku guuleystay dhan inuu hogaamiyo oo jin iyo insiba leh oo shimbir iyo xayawaanba leh oo ciida ka badan oo wato walidaalika ayuha alikhwa cibaada inuu imtixaan ku nahay cibaada ayaynu imtixaan ku nahay inaynu ilaahay caabudno cibaadadu waa min alfitra qofka bini aadamka ahay laakiin liman tuwajjah baad meesha taallon yaad u jeedinaysaa xaggiisa dadka badhba hawadooda caabuda afarayta man ittakhada ilaahu hawaa ayaa ilaahay tilmaamaya waa min alfitra walidalik baa taarikhyahanada plutarch taarikhyahankii greega hore waxaa laga sheegay wuxuu yidhi qad wujidat fi taariikhi mudunun bilaa xusuun wa mudunun bilaa qusuur wa mudunun bilaa madaaris walakin lam tuujad abadan mudunun bilaa macaabid buu leeyahy taariikhda bini aadamka marka la baaro inay xafriyaad qod meel kasta samee waxay dhahdaan waa la helay magaalooyin aan qalcada lahayn ama qusuur iyo daaro waaweyn lahayn ama iskuulla ku olin laakiin magaalo meel lagu caabudo aan lahayn lama haya bay leeyihiin dad waliba ma amaakin lilcibaada fi taariikh waa joogaa walidalik buu isaga laftiisa mar kale wuxuu tilmaamayay ina madiinatun bilaa ardin taquumu calayha ashal min qiyaami dowlatin bilaa ilaah buu lahaa magaalo aan dhulba laga dhisin dhulba loo haynin lagu yidhaahdo dhis ayaa ka fudud buu yidhi dowladaan diinba lahayn in la yidhaahdo dhis noloshu aynu joogno waa imtixaan imtixaanka waxaa guulaystay ninka sidii la rabay uga jawaaba miqyaaska guushuna waa faman zuxzixa can innaari wa udkhila aljannata faqad faas qad aflaxa man zakaaha ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما مقياس واقع مقياسك ما انت حول يالتي ما انت اد ماموشي ما انت مقعيه ماموس يالتي نبي محمد عليه الصلاه والسلام ومل جوغا صحابتي سي قولا سو مري نبا سو مري ما رايكم في هذا ابو المركه ودنكاس محو يدين لي بل كورما وحيد هذا كان هو من اشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وحين هذا نكان هو دقيدة مقالة وضا يضع غيركو كمدي وحمودين يهي هدو إرقاق قلين إرقادي صلى أقبله هدو قبر دونو إن لو قوريو يعني وانو وركيسة هدو هدلا بيدادين اللي دقيستو ساسو مدي نبي قوسكا موسى عليه الصلاة والسلام متكلا صو قلي ماشي صو مري markaasuu kii kale yidhi maa ra'yukum haada warkaasna bal ka warrama muxuu idin leeyahay waxay idhaahdeen kani ilaahay rasuulkiisiiyo waa min fuqaraa'i lmuslimiin de kani waa wax mahaysatada muslimiintu ka mid yahay hada xariyun in khatab an laa yunkax wain shafaca an laa yushafac wain qaala an laa yusmac bay idhaaheen dee ninkani waa iska masaakiinta ilaahay meelaa iska marmaraysa buu ka mid yahay
hadduu war sheegana nin cidi dheg u taagayso dhegaysanaysa ma aha hadduu reeraha gabadh weydiistana nin loo guurinayo ma aha hadduu erga galana ergadiisa cidi dhegaysan maysa bay yidhaahdeen nabigu wuxuu ku yidhi markaasi hada khayrun min mil'i lardi mithla hada kaasi buu nabigu yidhi wuxuu ka khayr badan yahay dhulka muggii oo kana kana idinku ammaanaysaan dunida muggeedoo kaasa kaa miskiinkaabaa dhaama xadiiska bukhaari wariyay muslimkana waa ku yaala xadiidkaasi saxiix ahi waxa uu tilmaamaya dunida muggeeda oo ashraafa oo magacyo maamuus leh miskiin ilaahay caabudaa isku dhaama baa la leeyahy waayo maqaayista bini aadamka lagu qiimeynaya lagu kala gedisan yahay miqyaaska dhabtee markaa wax lagu qiyaasaa wuxuu yahay nabi maxamed baa wuxuu yidhi ruba ashcatha madfuucin bilabwaabi low aqsama cala allahi laa barah xadiidka saxiixu muslim ku yaala ruba ashcatha nabi maxamed wuxuu leey badan mid timihii boodaysteen ama basaasaysan yihiin oo madfuucin bilabwaab ah albaabada aan laga furin dan cidi ka lahayn laakiin low aqsama cala allahi la abara waxaan jirin hadduu ku dhaarto idhaha wallaahi baan ku dhaartay saasay noqonaysaa ilaahay dhaartiisa u rumeeyo ay sidii noqoto low aqsama cala allahi la abara ilaahay baa dhaartiisa u bir yeelaya hadduu dhaarto idhaha saasay noqonaysaa sidii alla ka dhigaya buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ayuha alikhwa qur-aanku wuxuu inooga warramayaa qisaska qur-aanka waxaa loogu talagalay inaynu ka cibro qaadano qolo qiimeynaysa nin dadkii ay la noolaayeena oo abhadiis iyo isla weynidiis iyo wixiisii muujistay qur-aanka waxaa ka ramaya qaaruun oo soo baxay qaaruun waxaa laynagu yidhi qasnadihiisa lagama warramine furayaasha qasnadaha ayaa cusba min annaas aanay qaadi karin baa la yidhi guruub dada furayaashiisa ma qaadi karaan maaha adduunkiisa ninkaasaa wixiisii isku sharaxay oo macrad buu dhigay uu kusoo bandhiganayo abhadiisii iyo wixiisiibuu soo bandhigtay isagoo meesha maraya dadkii markaa way eegeen ninkan iyo quruxdii iyo waxa ka muuqda iyo xoolo iyo nimca wuxuu haysto ilaahay wuxuu leeyahy qaala aladiina yuriiduuna alxayaata addunya kuwii nolosha adduun doonaya hadafkoodii maxaa laga dhigay qolada tan ahdaafta bini aadamka ku kala baxaa ninka hadafkiisu yahay inuu beriis xoogsadaa dee qiimihiisu waa beriis ilan wuxuu noloshaba siistay habeen iyo maalinba wuxuu usoo jeeda waa inuu beriis helo marka noloshiisa waxay la qiimatay beriis ninka hadafkiisu wax kale qofka bini aadamkii ahdaaftu u nool yahay buu qiimaha noloshiisu noqonaya qaala aladiina yuriiduuna alxayaata addunya baa ilaha yidhi kuwii nolosha adduun doonaya waxay yidhaahdeen yaa layta lana mila maa uutiya qaaruunu inahu laduu xadin cadiim bay yidhahdeen bal ma nala siiyo yaa layta jeclaan lahaaye bay leeyihin ama allamaanu hello waxa uu haysto qaaruun oo kale qaaruun bay idhahdeen waa nin nasiib weyn ilaahay qolo kaluu tilmaamay mawaasiinta kala gedisan bini aadamku wax ku qiimeynayo wa qaala aladiina uutuu lcilma qolada tan ilaahay wuxuu ku tilmaamay asxaabu lcilmi expertska inay iyagu yihiin kuwii cilmiga la siiyey kuwii hore maxaa la yidhi yuriiduuna alxayaata addunya sifada wasfiga ay leeyihiin waa nolosha adduunba hadafkoodu ahaa qoladan dambe sifada ay leedahay waa maxay wa qaala aladiina uutuu lcilma baa ilaha yidhi kuwii cilmiga la siiyey waxay yidhaahdeen waylakum waar hoogiine thawaabu llahi khayru liman aamana wacamila saalixa walaa yulaqaaha ila asaabiruun idan dadka aakhire ilaaba oo ah sida bini aadamku u badan yihi ina haulaai yuxibuuna alcaajila wayadaruuna alaakhira kalaa bal tuxibuuna alcaajilata watadaruuna alaakhira ina haulaai yuxibuuna alcaajila wayadaruuna waraa'ahum yowma thaqiila waa basharku siduu u badan yihi dadka nolosha intay ka arkaan ay intan sokatay adduunkan un arkaya qiimeyntooda ugu weyn inay noqoto waxa adduunkan lagu qiimeynayo wallahi ninkii hebela rag buu dhalo uu soo saar haye 2 injineer iyo 3 dhakhtar bay raggii noqdeen
qiimayntiisa dhakhaatiirta iyo injineerada iyo inta tan waxaa laga yaabaa 3 injineer aan kubkooda waysa marin inay yihiin laakiin isaga way la weeyeen ilaa ninkii dhakhaatiir iyo injineero waayo dhakhaatiirta iyo injineerada maxaa loo qiimaysanaya lacag bay heleen weeyaan haddii suuq xaadka lacagtu ay qaali ahaan lahayd isagaa la isku ammaani lahaa ila lacag baa la raadinayay injineerka lagama barakaysto iyo tabiibka toona walidalik bini aadamku wuxuu hadaf ka dhigtaa bay ku xidhantay ilaahayna qiimaha dunida weyna siiyo waxay leeyihiin wama alxayaatu dunya illa mataacu lguruur baa ilaahay yidhi yaa ayuha annaasu ina wacda allahi xaq falaa taguranakum alxayaatu dunya walaa yaguranakum billahi algaruur wardadow baa la yidhi ilaahay wuxuu yaboohay waa dhab ee falaa taguranakum alxayaatu dunya nolosha adduunya yaydin kadinin baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala nolosha yare adduunya ha ku dawaqina rabbi wuxuu leeyahay isagoo qiimaha adduunina baraya wamaa hadihi alxayaatu dunya ila lahwan walacib waina daara alaakhira lahiya alxayawaanu low kaanuu yaclamuun adduunku ma aha baa la yidhi cayaar iyo lahwi lahwiguna waa cayaarta dadka waaweyn oo lacibkuna waa cayaarta kuwa yaryar adduunku wax lagu madadaasho iyo lacab mooyaane wax kale maaha baa la yidhi ee daarta aakhira baa ilaahay yidhi ayaa nololi jirtaa haddaa wax garanaysaa aakhira iyo adduun haddii laysu eego ilaahay wuxuu leeyay aakhira marka la yimaado kam labistum fi lardi cadada siniin baa dadka la weydiin doonaa waar dunida intii ay joogteen ka warrama qaaluu labithnaa yawman aw bacda yawm fas'al ilcaadiin bay leeyihin maalin ama maalin barhkeed baanu joognay ciddii wax tirinaysay hala weydiiye bay leeyihin ilaahay baa waa loo jawaabo waxaa lagu yidhaahdaa in labistum ilaa qaliila kama foga saa sheegaysaane wax yar baa joogteen baa la yidhi in labistum ilaa qaliilan in yar baa joogteen low annakum kuntum taclamuun markaasaa lagu xigsiiyey afa xasibtum annamaa khalaqnaakum cabatha wa annakum ilayna laa turjacuun iyo aayaadka kasii dambeeya adduunka guushiisaan sheegayna rabbi wuxuu ka warramayaa muslimiin guulaystay adduunka kan qolo ilaahay wuxuu yidhi يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون واركوا مؤمنين تهوا ميدن تصيابان ربي يلي تجارة بسنس عذابك اللي قبت بعده إلهي الرمية يا رسول كيس إلهي درتينا أدريرا نفئي مالبا ساس بايدين خير بدن باليدي هدا وحقرانيسان سيدا هدا سميسان إلهي يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم بإلهي هدا سيدا يشان إلهي دنبقى نضافيا jannana way idin geynayaa iyo beero hoosteeda wabiyaal dareerayaan iyo guryo fiican iyo beero nagaadi leh dabeetana ilaahay wuxuu yidhi dalik ismu ishaare wax durugsan lagu tilmaama yani lisharafiha bay baciid u tahay dalika alfawz alcadiim baa ilaahay yidhi kaasi waa liibaanta weyn baa ilaahay yidhi kaasi waa liibaanta weyn wax kalena ilaahay uu siinayaa baa la yidhi waxa kale maxaa lagu sheegay wa ukhraa tuxibuunaha nasrun min allahi wa fathun qariib iyada laguma darin dalika alfawz alcadiimka kuma tirsana fawz alcadiimkii xaggaasu ku dhammaado amaa waxaa leedin baa la yidhi wa ukhraa tuxibuun mid kaloo aad jeceshihiin baa la yidhi waa maxay kan kale aynu jecel lahay waa inaanu gaalka ka xoog badano nasrun min allahi wa fathun qariib gaalkana inaad ka xoog badataan waxna furataan taana waa laydinku dari baa la yidhi iyadu markaa laguma darin inay ka mid tahay maxay guushaynu ka warramaynay inaanay guushaa weyn wax badan ka ahayn baan ku tusi qur-aanku qolo kaloo ka warrama wuxuu ka warramay qolo mu'miniinoo la gubay mu'min la gubay ma guulaystay mise ma guulaysan
بمقياسنا الدواب اللي قوي سماها إلهي وحكوا الرمي في سورة البروج ضد مؤمنين أو نبقرة أو ديكتاتورة أو كبري انتو هلي يدا أنا ربينا أو يدينا يدا ورنا إلهي بأن ربيا أو انتو قدد قضي ضبكو الشضي مدمنو قري لما انتو تقدك كو إدلي وصلنا ده نبي وحي ورمي سادتك سيدي لو قري أيا قفض مرا أمولو المير وضطايس سودول تاكتي المهي بيقول نحضي حديث النبي محمد وحشيقي وكوي عليه الصلاة والسلام دورك قف يران تلقى هديو كمدها المهي يرابا هضي وحولي هوي اسبري فإنك على الحق هو صبر حقك السقطة إسلام دينا وقت كيستي كوي لقبي يركو بيرت ولا ودا قبي تتكا لقبي مركو قرآن كور رمي في سورة البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود إلهي بصوضي وحلقوا قبل إن الذين فتروا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا كوي مؤمن كي مؤمنات كبا قبي امتحامي أنت وبتكين إلهي الباب كيس بالكور داد كيسين تلا يبولي توبدوا وقولي كوي داد كمريي أنت وبتكين با إلهي يقولون عذاب حريق بيليه عذاب حقوبة كوي لقبينه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير بيليه والله سنة وحي لدي جنوين هوستة بيردرير لكن ذلك الفوز الكبير بيليه قل هذا هو محل يلي ذلك الفوز العظيم قل هذا تن محل يلي ذلك الفوز الكبير قوش ويني واتاس بيلهي قوش كبير كاهي وقول استين محيكو قول استين مقياس كاوحوها فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز بها صمها مقياس كنبطاي ادون كيها كي مادان ادون كان واضمانون اما هلقو قبو اما سريرت هذا كله اما حبضها لو غلفتو اما قد كدع واضمان ساعدوا لمن يسمك لقديسان لكن you will die وهو دنبين واضما أما مقياس كالنبطة هي وحويان مركا ديماتو حقادو كعيسا أدون كان انت أدنو شواد انتحامنتي أداد حول لاذي أداد مقع لاذي أداد ماموس لاذي أداد مسكين تاهي أداد وحقرن قفل بوي امتحامي وحي لقسيات كوي انتحامنتي يجواب تتكبعيسو مشاكر باطي مصابر باطي أذيك وطالله هدي بيتك هذا صوبها ما صبرتي هدي بيتك نمعدي صوبها ما هاد نقضي هذا كوتا الله وهذا امتحان انت وحنو دم هذا امتحان تدكم بالله بدا امتحان كلا جعل لكن انت بدن امتحانك ادق با ددكو ربي usoo noqda امتحانك نعمدا انت بدن ددكو ربي با ilaaba kala inal insana la yatgha qorma an ra'ahu istaghna ba ilahi ku tilmaam inay tari guultay maxaa tilmaamaya saxaabadina saasi u arkayeen nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam ayaa kooxi u timi arbeed niman arbeed baa u yimi dabeetana waxay yidhaahdeen waanu islaamaynaa waxaanu rabnaa inaad cid nagu darto ciddaad nagu darayso waxaanu rabnaa bayna rijaalan yucallimuuna dadna bara alqur'aan wa sunna nabigu calayhi salaatu wasalaam 7 saxaabada ka mid ah oo alqur'aan nimankii loo odhan jiray oo Anas ibn Malik xadiidka warinaya abtigii ku jiro Haram ibn Milhan oo ku jiro ayuu nabigu ku daray 7 kanina waa ragii ku caanka ahaa habeenkiina inay quraanka akhriyaan oo bartaan oo isbaraan maantiina intay baxaan bay ama soo xaabaysan jireen biyaha masaajidka soo dhamaantiina way shaqeyn jireen habeenkiina dad cibaadaysto wax bartabay ahaan jireen xaabadiyo waxa intay soo guraan ayay iibiyaan ahlu sufaha dadka ee masaajidka iska joogaan waxba haysan bay iyaga qoodiya nimankana waxba haysan xaabada soo guraya ay ahlu sufaha qoodiya niman bay ahaayeen adduunkana xoogsada aakhirana cibaadaysta diintana si fiican u barto meesha jooga 7 ragga ka mid ah nabigu ku daray wuxuu yiri qolada u taga oo dadka diinta u soo sheega dhexda markay marayeen baa qabaa'il carbeed oo kale oo nimankii waa la qabqabtay waa la laayay
ninkii ka mid oo waraaq sida oo ninkii madaxda ahaa isla waraaq u dhiib ayuu yidhi waraaqdan baa nebi maxamed ii soo dhiibay mid buu xagga dambe uga diro wuxuu yidhi waran xagga dambe ka geli waraaqdii markuu isyidhi u dhiib ayaa midi xagga dambe ka yimo warankuu xagga kale uga saara ninkan waa la khiyaameeyey gaalaana khiyaamaysay waana la dilay muxuu ku dhawaaqay markaa xadiidka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy fuztu warabbi lkacba buu yidhi walee guulaysti waaba lagu dilo lagu khiyaameeyey xaggeed guulaysata ninkan waa gaal baa dhakray khiyaameeyey waa la dilay haddana wuxuu ku dhaaranayaa fuztu warabbi lkacba buu leeyahy rabbiga kacbada alaan ku dhaartee waan guulaystay waayo wuxuu arkayaa hadafkii nolosha inuu xaqiijiyey waxyaa ilaahay soo dejiyo nebi maxamed loogu sheegay dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi saxaabadiisii walaaladiin waa la dilay wainahum qaaluu waxaanay lahaayeen allahuma abliq cana nabiyana ana qad laqaynaaka faradaynaa canka waradita cana ilaahu nabigeygii waxaad gaadhsiisaa inaanu kula kulanay oo aad raalli naga noqotay annaguna aan raalli ka hadnay warkayagaa inaanu guulaysanay ilaahu u sheeg bay leeyihin qoladii naga dambeysay nabiga gaadhsii saxaabadiisi ay soo ogaato hadafka dhabta ee uu nolosha laga leeyahay waxa weeyaan in cadaab laga badbaado jannana la galo qofkaasaa guulaystay walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam baycat alcaqaba markuu saxaabada la galay alcaqaba thaniya bayca alcaqaba thaniya heshiisyadii uu la gelayay ansaarta u timi meel xajkaabaa la isugu yimi waa la wada hadlay ballan baa lala galay ballankay nabiga la galeen muxuu ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay ballan kula galeen waxay naftooda iyo maalkooda iyo caruurtooda ka celiyaan inay nebi maxamed ka celin doonaan keen gacanta baa la yidhi saxaabigii ugu yaraayo la socday ascad ibnu suraara yidhi waar jooga war waa iska hubiya waar barrita idin wax ka bedeli doontaana hubiya maanta wali ballankuma jirtaane saxaabadii la socotay waxay yidhahan war inan yar baa tee iska dhow meesha waa ninkii ugu da-yaraa waha wiil yar baa tee ka banay baa la yidhi saasaanu nabiga ballan kula galnay maxaanu anana leenahay baa la yidhi nebi maxamed muu odhan inka dabaday baa madax noqonaysaan wasiiraan idinka dhigaya dowladdaa wax ka qabsanaysaan magaaladiina caasimada waddanka noqonaysa midna kuma odhan muxuu ku yidhi lakum ljanna buu yidhi waxa ay ballan qaadeen haddaa fulisaan laa dowladnimo walaa waa guulaysanaysaan walaa cid ba iska dhicin doontaan walaa magaalo madaxdaa heli doontaan waxba looma sheegi kale waxa la yidhi waxaa leedihiin janna leedihiin hadafkiinii baa gaadheen waxay dhahaan soo taa gacanta marka waa kula ballamaynaa mar haddii arrinku yahay janno waa qaadanay bay yidhahdeeno ballankaan kula gelaynaa ilaahay subxaanaه watacaala intuu janno sifeeyo wuxuu leeyahay ina hada lahuwa alfawz اlcadiim limili hada falyacmal ilcaamiluun baa ilahay yihi ina hada lahuwa alfawz اlcadiim kaasi baa ilahay yihi waa guusha weyn ee limili hada falyacmal ilcaamiluun kaas uun ha u shaqaystaan baa la yidhi cidda rabta inay shaqaysataa amaa cidda khasaartay ee khasaaraha ku dhacday qul ina alkhasiriina aladiina khasiruu anfusahum waahlihim yowma alqiyaama alaa dalika huwa alkhusraan lmubiin baa ilahay yihi qul dadka waxaad ku tidhahdaa baa ilaahay leeyahy nabi maxamed oo dadka waxaad u sheegtaa calayhi salaatu wasalaam ina alkhasiriin aladiina khasiruu anfusahum waahlihim yowma alqiyaama alaa dalik huwa alkhusraan lmubiin kuwa guuldaraystay waa maalinta qolada hoogtuunbaa guuldaraysatay maalinta qiyaame qolada hoogta ayaa guuldaraysatay khasaare cadna kaasaa ah waxaan leenahay nebiyada dhammaantood way guulaysteen laakiin qur-aanku wuxuu inoo sheegayaa nebiyadaa guulaystay qaar waa la laayay oo qur-aanku wuxuu sheegayaa nebiyo badan oo la laayay qaarna way
xoog bay yeesheen oo ummad badan baa raacdo dowladay dhiseen oo caynkaasi laakiin waxaasoo nebiya bale nebiyadaasi qaar baa waxaa la tilmaamayaa taariikhdu ay sheegtaa inta madaxa laga gooyo in dumar xun loo hadiyeeyey baa nebi madaxii waxaan maanta aynu dhacdo dunida ku arkaynaa taariikhda bini aadamka hore usoo wada mareen maaha wax cusub taariikhda bini aadamku mararka qaarkood baa la yidhaha waa bayjaj soo noqnoqdo un waxaan oo dhan horaa loo arkay nebi la dilay nebi madaxa laga gooyey nebi la xabsiyey nebi la xidhay iyo nebi la raacay nebi guulaystay nebi xoogaystay intuba taariikhda way soo mareen qur-aankuna intaba uu ka warramayaa reer banu israa'iil maxaa lagu tilmaamayaa fariiqan taqtuluun waa ambiyo ayaa la leeyahay qaybna waa disheen qaybna waa beeniseen nebiyada caynkaasiya fariiqan kadabu wa fariiqan yaqtuluun ilaahay ku tilmaamayo waxaan leenahay dhammaantood waa guulaysteen waayo hadafkii ay u noolaayeen bay xaqiijiyeen qofku inuu dhintaa wax weyn maaha qof waliba uu dhiman laakiin waxa weyna hadafkaad nolosha ka lahayd inaad garato qur-aanka waxaa ku soo arooray marka ee fawzka ka warramaya ilaahay subxaanahu wa tacaala dhowr iyo 10 aayadood oo kala gedisan bay kusoo aroortay dalika alfawz alcadiim iyo dalika alfawz alkabiir iyo dalika alfawz almubiin 13 aayadood oo qur-aan dalika alfawz alcadiim bay kusoo aroortay hal aayadina dalika alfawz alkabiir bay kusoo aroortay laba aayadoodna dalika alfawz almubiin bay kusoo aroortay 16 aayadood ee alfawz alkabiir alcadiim almubiin kusoo arooray 16 kuba aakhiray ka warramayaan iyo janno 16 kuba waxay sheegayaan guul qur-aanku uu ku sheegay waa qofku faman zuxzixa can الnaari waudkhila aljanna markuu tago in aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati lahum jannaat tajri min taxtiha alanhaar dalika alfawz alkabiir baynu soo maray قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين صدح دا أيضا بلبنا مبين كسو أرورت مدينة كبير كسو أرورت أما وحك لنا أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم waxaa aayad qur-aanka kusoo arooray 16 aayadood ee alfawz kusoo arooray ama cadiim daba taalla ama kabiir daba taalla ama mubiin daba taallo intuba jannay ka warramayaan markaas qura la guuleystay erayga fawzka iyo mushtaqaadkiisa waxa ka dhambalmo oo dhami 31 meelood buu qur-aanka kaga soo arooray lafdul fawz iyo mushtaqaadkeedu 31 meelood bay kaga soo aroortay 31 4 meelood ka mid ah alfaa'izuun ay ku soo aroortay 4 meelood ee alfaa'izuun ku soo arooray ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay alladina aamanuu wahaajaruu wajahaduu fi sabiili illahi biamwaalihim waanfusihim acdamu darajatan cinda allah waulaa'ika hum alfaa'izuun yubashiruhum rabbuhum biraxmatin minhu waridwaanin wajannaatin lahum fiiha naciimun muqiim khaalidiina fiiha أبدا إن الله عنده أجر عظيم موضع اللباد إلهي وحلي إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار الله اللي قاري إلهي سبحانه وتعالى موضع صدحات وحكوت المامية إنما قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم من يقول سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة
asxaabu ljannati hum lfaa'izuun. afarta aayadood ee faa'izuun kusoo aroortayna afartuba jannay ka warramaya. idan qur-aanka haddaad dib ugu noqoto, guul rabbi uu sheegay, rabu samaawaati walardi baa inoo sheegaya guushu maxay tahay, success maxay tahay, najaax, faws, guul. goormu qofku gaadhaa? wuxuu gaadhaa qofku markuu ku guulaysto inuu naarna ka badbaado, jannana uu gala buu ku guulaystaa. ayuha alikhwa, meel aan laga gaboobayn oo laga dhimanayn oo lagu waarayo oo waxaad doonto aada helayso, waxaad taminadaba aada helayso oo waasici waa janno. adduunka noloshiisu munaqasaadka waxyaabaha qadhaadheeya ma weydo. waad xoojino markay xooluhu kugu bataan ayuunbaa dhadhanka lagaa qaadayo, dhakhtaruunbaa ku odhan kaana ha cunin kana ha cabin kana caynkan. laislama helo. waad yaraano xoog badnaano wax walba waad liqi karaysaa, waxaad liqdaba waad waayi. adduunku iska noocaan. adduunka intaad joogto ood imtixaamantay isku dhamma lagama helo. meesha la guulaysto marka la tago waa aakhiro. miqyaaska dhabtee noloshuna waa kaa. laakiin dadku markay bulsho aan la isku diinahay inaad la noolaato, oo bulsho a kala hadafti inaad la noolaato, oo dadkao dhan oo meel u wada socdo unaad aragto, ama xoolo ama magac ama wax wada raadinaya, waxaa laga yaaba marka dambe adna istraa war male halkay ku jirtaa, male xaggay ku jirtaa. laakiin wuxuu u baahan yahay qofka muslimka ahi maqaayiis ilxayaa inaanay ka qaldamin, waxaa nolosha lagu qiimeeyo. waxaa laga yaaba haddii lagu yidhahdo saacad caruurta qur-aan u dhig, saacaddii aad qur-aanka dhigaysa haddaad meel kale yaro shaqo kasoo hesho oo saacaddii 30 pound 40 pound ay tahay, malaa halkan ingiriiska 40 kaba ma gaadhee. waxaa laga yaaba qofku inuu waa anagu shaqaa soo yara hele dib wadaad ha loo dayday qur-aanka sii dhiga. sababtu waa maxay? 40 pound baa jannadii ka qiimo batay. hadafkaagii weynaaye aada u socotay 40 pound. waxaa laga yaabaa inaad aragto qof leh sheekh dee shaqadii iyo salaadiis waafiqi weydo meesha lama ogola in la tukade, bal haddii aan isku dardara ka waran. yani shaqadaa kala xoog badatay salaadii. maqaayiistii baa qaldantay. qofka bini aadamkaana haddii kalibarku kaa lumo, waxaan wax lagu qiimeynaya, wax lagu miisaamaya, wax lagu eegaya, hadduu kaa lumo kaa qaldamo, noloshoo dhan baa mulaaqmaysa. qofka mu'minkee dhabta ahi waa inuu gartaa hadafka dhabtee uu socdaa meeshuu yahay. goortu khasaaro dhaba galayna inay tahay markuu naar galo, guul dhaba goortu helayna inay tahay markuu janno galo, walow ha la gubane. waxaa qur-aanku inoo sheegay kuwa la gubay oo haddana la yidhi maxay dalika alfawz alkabiir. inta la gubay ayaa ilaahay leeyahy dalika alfawz alkabiir, waayo hadaf ilxayaa bay ku guulaysteen. noloshu markaa hadaf haydin yeelato, noloshu hadaf ka yeesha a xaqiijinaysaan, hadafka aada xaqiijinaysaana ha caddaado. wax kastoo nolosha aada qabanaysaa markaa waa inaad iska weydiisaa hadafkayga muxuu ka gooyaa, intuu jaraya. wax kastoo meesha aada u socota wax weyn ka taraya qofka bini aadamka ugu qaataa. maalan dadku inuu shaqo fiican wada helaa oo raadinaya, markaasaad iskuul galaysaa, jaamacad galaysaa, kan kasii baxaysaa, kan kasii, waxaasoo dhan waxaad u socotaa hadaf a maxay? shaqo mustawaheedu xadka iyo si aad u gaari lahayd baad waxaan oo dhan usoo marta. 20 sane waxbarashaa waxaad ugu jirtaa shaqo mustawaheedu kaa yahay inaad gaadho. ka waran janno mustawaheed inaad gaadhaa maxay u baahan tahay markaa? shaqo caynkeeya. limithli hada falyacmal ilcaamiluun baa ilahay yidhi intuu janno sifeeyey. taas oo kale baa rabbi yidhi ciddii doonaysaa ha u shaqaysata baa la yidhi. ciddii doonaysaa ha u shaqaysato. wafii dalika falyatanaafasil mutanaafisuun baa ilahay yidhi. kuwa nolosha loolamaya, bini aadamku nolosha inuu loolamo waa ka mid, laakiin xaggee loo loolamaya? ma madaxnimada, ma lacagta? loolanku waa xaggee? ilahay intuu janno sifeeyey buu yidhi wafii dalika falyatanaafasil mutanaafisuun. kuwa loolamaya taa ha u loolamaan baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala.
darsigani markaa wuxuu ku kooban yahay eray qura oo ah nolosha waxa lagu qiimeeyaa miqyaaska aan isla garanno. rabbaana inoo sheegay, wadaadna kama sugayno, cid kalena kama sugayno inay sharaxda qur-aanka si cad ugu taalla. ilaahay baa yidhi faman zuxzixa can innaari wa udkhila aljannata faqad faaz. waxaan ilaahay ka baryaa subxaana wa tacaala kuwii guulaystay in alla inaga dhigo. noloshan macnaheeda cidda fahamtay in rabbi inaga dhigo subxaana wa tacaala. hadafka nolosha ka leenayna in rabbi inoo saxo inuguna hanuuniyo. صلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.